taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay ammaanka gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso. gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa sheegay inay jiraan dad dana gaar ah kale isla markaana u doodaya dambiilayaasha lagu helo fal dambiyada isagoona ugu baaqay bulshada inay ka feejignaadaan. maantay waxaan isugu nimay halkan in aan wacyigelin iyo warbixin la wadaagno bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Bari runtii waxaan rabnaa inaan warbixino yar yar ka bixino shaqooyinkii soo socday iyo caqabadkii la soo darsayay oo ay u baahan tahay bulshadu inay ogaato waxaan rabnaa inaan si fiican bulshada u dareensiino ururada argagixisada ah qaababka ay bulshada ugu dhex jiraan ama ay u kiciyaan si bulshadu ay uga feejignaato runtii markasta argagixisadu waxay isku dayayaan inay sameeyaan barnaamijyo bulshada dhexdeeda ah oo ay isticmaalaan qaybaheeda kala duwan bulshada ay isticmaal iyagu ku dhuumanaya qabiil ku dhuumanaya inay kiciyaan bulshada haldoorkeeda ama odayaasha ama dhalinyarada iyo wixii la mid ah markasta waxay cabasho u gudbiyaan oo markasta ku taagan yihiin oo qabiil ku kiciyaan ama waxa ay ku isman yihiin cuqaasha nabadoonnada ah iyagoo danahooda gaarka ah wata haddana waxay u soo dhexmaraan dhinacii qabiilka ilaa qof kasta oo ururadan ka tirsan wuxuu ka dhashay qabiil buu ka dhashay marka sidaa daraadeed cuqaasha nabadoonnada waxay isku dayayaan markasta inay u maraanin dadka iyaga laga qabto ama laga xiro waxa kale oo jira inay markasta ka faa'iideystaan goobaha shaqooyinka bulshadu ay wadaagto waa meelaha dhufayska u ah oo ay ku dhuuntaan marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxa laga rabaa shaqooyinka dadka haya shaqooyinka bulshadu u badan yihiin tagaasidu ka mid tahay ganacsiga suuqa dhexdiisa ay ka mid yahay dareewaladu ka mid yihiin gaadiidka ay baxa tamajarayaashu ka mid yihiin maxaan ku iraahdaa geerashadu ka mid yihiin bulshada ku dhow iyo iyaga waxa la rabaa si hoos ahaan loo fiiriyo shaqooyinka lagu dhunto waxaan rabnaa bulshada inay si fiican u dareento inay doonayaan inay ku dhex milmaan ama kuba dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxa dhan waxay u yihiin dhufayska ay ku dhuntaan oo bulshada isugu ekeysiyaan waxaana soo martay dhacdo runtii ah wax u baahan bulshada in hoos u fiiriyaan waxaana soo maray nin walaalkii la dilay oo ururada argagixisada ay dileen oo nabadoon ahaa ka bacdi qofka markii la soo qabtay isagoo aan ogeyn waxa uu geystay isaga inuu dekan ka qaba aan ogeyn isagii la soo isticmaalay oo doonaya isagii inuu naga sii daayo marka waxay u baahan tahay taas waa tusaale ay bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato waxaana soo maray shakhsi ama qof xukuman oo caaqil ah oo xukunka ku jira oo isagu aan ogeyn waxa dhacaya laakiin doonaya kii xukumay inuu soo daayo sadaraadeed bulshada waxa laga rabaa dhacdooyinka riyaliga ah oo dhabta oo ku soo mara inay waaqici u noqoto ay ku xisaabtamaan marka sadaraadeed waxa la oran karaa cuqaasha dacwadaha u imanaya iyo waxyaalaha u imanaya weyn si aad iyo aad uga fiirsadaan ay macnaha hoos ugu dhuuxaan iyo danaha laga leeyahay Cabdirasaaq Cabdullah warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Boosaaso.